maxay tahay awoodaha alla siiyay dhalinyarada ay ka faa'iideysaneen awoodaha alla siiyay dhalinyaradu waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay marka quraanka meel walba waxa lagu tilmaamayaa in Ilaahay laga baqo haddana alla ka baqyadii dadka qof walba maanta marka aragtid oo tiraahdo waxaan maxaa u sameynaysaa waraan Ilaahay ka baqo ku leeyahay alla ka baqyadu kulli waa wada garadsanahay sidii majority laakiin alla ka baqyada dadka sidii u haystaan iyo sidii ay tahay waa kala labo Sayyidina Ali dhalinyaradu wuxuu ka mid ahaa caalimiinta ahaayeen ninka la dhaho Anas bin Malik sidoo kale dhalinyaradii Nabiga Kaleey salaatu wasalaam oo madrasadii Nabiga ka soo wada baxay ay ku jireen dhalinyaranimada marka quwadda ay leedahay idin sheegaya Anas bin Malik wuxuu dhahay 10 sano baa Nabiga Kaleey salaatu wasalaam u shaqeynayay 10 sano aan shaqeynay hal maalin Nabiga Kaleey salaatu wasalaam ana soo maxaa sidan u yeeli weysay maxaa sidan u yeeshay iskumaana qabsanin oo dhahay li ajli Nabiga raxmadiisa darteed haddana wuxuu noo tilmaami jiray oo dhahay Nabiga quwadda xooga wanaaga waxbarashada maxaa la dhahaa khayrka inay ku jirto dhalinyaranimada sababta ay tahay dhalinyaranimadu qofka markuu dhalinyar yahay qalbigiisa wax qabad weyn uu leeyahay aqligiisa iyo garaadkiisa uu dhameystiran yahay oo ma laclacayo wixii loo diro hadoo maanta salaad uu istaago waxa laga yaabaa inuu caawa dhan taagnaan karo laakiin haduu duqoobo ma naqanayso in macnaha uu sidii uu cibaadadii uu sameyn jiray inuu sameeyo ama qirada uu akhrin jiray intuu dhalinyarada ahaa inuu sa akhrinina laga yaabaa laakiin haduu dhalinyar yahay muxuu qaban karaa waay markuu dhalinyar yahay wuxuu qaban karaa Sayyidina Umar waxa kasab u ahaa gabar yar inuu islaam noqdo oo sidaas juhdigaas dadaalkaas wanaagaas diinta u qabtay ee nabigeena xataa Kaleey salaatu wasalaam oo ku amaanay Sayyid Umar haduu bacdigay nabi soo bixi lahaa Sayyid Umar laga dhigi lahaa sababtaas yaa lahaa gabar dhalinyar lahayd gabadhaas oo walaashiisna ahayd inay soo islaamisay Sayyid Umar asagoo seef soo qaatay ee dhahayo nabiga ama aniga Muhammad ama aniga beledkan labadeena kama wada shaqeyn karna qof uunba u haraaya asagoo la oo soo baxay markaas wuxuu imaaday asagoo jidka ku soo jiro walaashiisa xaafad ee leedahay oo soo maray markaas wuxuu arkay iyadoo aqrinayso daah ma ansalna alayka alqur'ana litaqsha illa tadhkiratan liman yakhsha dhayso codkii daahadaas ee quraanka la aqrinayay baa saameeyay Sayyidina Umar sababtay ducadii waxa ku dhacday nabiga uu yiri ilaahow Umarayn midkood ku soo hanuuni diinta ee ku koryeel qawigi marka oo Sayyid Umar oo diintan ee ku kor noqotay dhalinyaranimadiisii waxa uu sabab ahaa gabadhaas dhalinyarada ah quraanka akhrintiisii buu Sayyid Umar marka anoo quleysanayo oo Sayyid Umar marka uu yimid oo walaashiis uu imaado wuxuu dhahay maxaa akhrinaysaa markaas ay tiri kalaamka Ilaahay ee maqashiyo dhah markaas ay tiri Allahumma ansalna alayka alqur'ana litakhsha illa tadhkiratan liman yakhsha marka tadkiradii iyo yakhshadii iyo cabsidii markuu maqlay Sayyid Umar way saameysay qalbigiisa taabatay markaas uu yiri iigay rasuulka waan islaamayaa gabadhii ayadoo sida ah way soo baxday nabigii u keentay Sayyid Abu Bakr wuxuu yiri ana albaabka furayo Umar maanta khayr iyo shar wuxuu la yimaado aniga u taagan nabiga Allah meeshaad ii joog Sayyid Umar maanta wax kasto la imaadana bixinayay Sayyid Umar markuu soo galana shahaadad ku qirtay waati tawxiidku uu faafiyay oo albaab kasto inuu garaacay oo leeyahay aniga waa shahaatay biri hadaad dheeleed Umar igaaday maanta kuma gaadaay tawxiidka qaatay nabi Maxamedna waa rumeeyay ogow albaab kasto inuu garaaco sidii dhahay diintana markaas maxay ahayd shaambay ku adin guriga lagu qarinayay markaas diinta qawiyooday marka waxaan ku soo koobayaa diinta inay sidii tahay bada diinu qariib wa sayuudu qariib fadluba ayuha alqurba wa nabiga Kaleey salaatu wasalaam diinta qariib ku bilaabatay qariibkeena ku dhamaanaysa marka dhalinyarada saas waaya qawigooda iyo xoogaas diinta ee u tareen raggaasna dhalinyaray ahaayeen oo diinta taas u soo qabtay jazakallah waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena su'aasha kale oo xigta waxay noqonaysaa maxay tahay caqabadaha ay kala kulmaan dhalinyarada social media dhalinyarada caqabadaha ee social media ee kala kulmaan waxa kamid ah horta social media loo faa'iidan uu leeyahay qasaaran uu leeyahay
ninkii faa'iidadiisa qaato faa'iidadii helaya ninka khasaarada qaatana khasaaraduu helaya dhalinyarada maanta waxa ugu badan oo waqtigooda lumiyay oo diintooda lumiyay oo ay mar walba aysan ka faa'iideysanaynin waqtigan lagula xisaabtamayo aysan ogeen daqiiqad kasta in la soo hordhigayo ayadoo taas ay mudan tahay oo nin walbana uu ku fadhiyo waxa laga yaabaa social media waxyaabaha uu maanta nagu soo siyaadiyay hadda waa horumar saa'idoo sii dhalay horumar ma dhigi karna laakiin waa xumaanaha waxaa ka mid ah dadku way fiirsanayaan wuxuu isleeyahay caawa inta xogaa aad cashada laga gaarayo wax yar bal isii madadaali waqtiga sii dhumi waqtiga dhumiska aad dhuminayso waqtigan aad dhuminayso ma ku xisaabtamayo in biri la soo hordhigayo ama la leeyahay waqtigan intee ku bixisay ma ogaba ay xisaab ugu jirto malagyaal korkeena saaran oo raqiib iyo catiid la dhahayo naga qorayaan wax walba oo aan ku hadalno dhalinyarada marka wax yar fiiri isdhaa waxa laga yaabaa wixii yarka caawa 7 saac 8 saac inay la tagto salaadii subax ay ka tagto cishihii waxa laga yaabaa asoo wax fiiri isdhaa oo sidii ay ku dhaafta hadhow dukanay oo ku jiiftaba asoo mobilkii ku dhagan ee fiirinayo miidiyaha waxyaabaha la soo gelinayo ama gabarnii kisaata ninni kinaay ha aado wixii xumaantii u fiirsanaya midka kale ka faa'iideysanaya asayna waxa kamid ah qisa la soo gelinayo wacdiga la soo gelinayo qisooyinka dad badan ay saameeyeen oo waxaan arkay qasaa'ista micnaha ee media la soo dhigo ee kuwaan toobay waxa kamid wiil la dhaho Sheikh Ahmed Oje ina aad u taqaana umalay wuxuu dhahay maalmaha kamid ah aanu guri iskaga jiro baa waxa dhacdo dhahay mobilkaas aan ugu foorarsanaa wuxuu dhahay wax aan soo qarabi karo waa soo qarabay waa soo daalay dal anu micnaha la daala dhacayo guriga imaado dhahay mugdiyo noqdo dhahay marka guriga mugdiyo koronto la'aan imaaday guriga mugdigi marka wuxuu dhahay mobilka isku madadaal maagay mobilka waxaan ka fiirsadaa waxa dhahay bas uu dabagadooma habeenkii dhan marba dhinac ugu jeesanayo markii dam waxa salaadii la adimo dhahay subax markaas waxa isdhahay niyaho salaada subaxda iska soo dukato sooma fiicnaa lahayn oo masaajidka tagto maadaama koronto jirin بس وحده وان قبستي بيقوا ku qabaystay dhar kale fiican aan gashtay masaajidka tagay waa soo dukaday ilaa aan toogay xumaanihi iyo wixii dhan aan sameeynayo dhahay subaxaas iga hareen oo dhahay li ajli mugdiga dartiis salaadii sidoo ku bilaabay waa taa arki jirtay salaadii inuu salaad ku dari jirin marka wanaagaasna waa ninku arkay laakiin waa laga faa'iideysan karnaa kheyraadkan hadda laga soo deenayo kala hadaad ka faa'iideysato oo waxyaabaha kheyrka aad faafiso hadda waxa arkaysaa dhalinyarada inaysan dhigeen waxyaabaha kheyrka ah ma la fiirsanayo sheerkooda uu yar yahay kan xumaanta aan sheerkiisa aad u badan yahay marka dhalinyarada waa sidaas marka iyo diinta waxa kala haysto dhibaatadaas waay jazakallah su'aasha u dambaysan ku weydiinayo maxay tahay taladaada aad siinayso dhalinyarada okay dhalinyarada talada aan siin lahaa dhalinyarada xoog badan ay leeyihiin wax qabad badan ay leeyihiin sida Soomaaliya hadda aan aragnay 13 qofood ee Soomaaliya dhan guusha u keeneen dhalinyaro ahaayeen dhalinyaro wax barteen ahaayeen Soomaaliyana waa aragteen 100% dal islaam laga helay carab xataa ma jirin Soomaaliya kaliya laga helay guushaas iyo wanaagaas waxa keenay dhalinyaro dhalinyarada marka waxa ugu nasiixay lahaa aqli badan ku jiro fikir badan ku jiro wanaag badan ku jiro xoogooda inaysan ku qasaarinin iyo aqligooda waxyaabaha maangaamnimada ah ee liita inaysan ku qasaarinin ay ku qasaariyaan diinta wax qabadka sababteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay in tansurullaha yansurkum haddaad ii gargaartaan waa idin gargaaraya ee gargaarka Ilaahay inaad u gargaarayna maahan diinta wax qabadka qof kasto meeshuu ka gaaro qofku markuu ahlu diin noqdo hal siyaabo uu leeyahay jirto marka ahlu diin noqotay iyo marka maal tacbato waxa wanaagsan marka ahlu diin tahay kan maalka leh xataa adiga hoostaadu imaanaya maxaa keenay li ajli diinta darteed waay maalka inuu wax ahaan diintiya lagu sheegaya sababteeda innamal hayaatu dunya la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafaaqurun fiir Ilaahay wuxuu ku tilmaamayo lahwi maxaa la waxyaabo dhalanteed ah dhalo sideeda banaan inaad maanta dhan celcelisay kartaa hadii kale wajibaysa meesha la arka ma dhigi kartid haye haddana nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay
leeyahay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta marka waxay ku tilmaamaysaa adduunyada meel walba waxaa nool kaga tagay kun fi dunya kaannaka qariib oo caabiri sabiil haddana fiiri adduunka ku ahow mid qariib ah safar ku ah safarka maxaa waaye macnaa qofka markuu safar yahay ma hakanaayo meel ma fariisanayo jiifkiisa ma saxno meel uu ku istareexa ma lahan saas darteed adduunka ku ahaada haddii wanaagsan tahay nabiyullaahi maxamed alla sii lahaa yaa ka qayr badan maya adduunkan ilaahay wuxuu ka jecel yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jiro oo adduunka wax la keena ah marka saa darteed dadkaas ayaga ahaa waxay ku liibaaneen waxay ahayd diintay u nusreeyeen ee u dadaaleen marka dhallinyaradeena maanta joogto hadday diinta qaataan ilaahay wuu ka raalli noqonayaa wax walbana hortoodu keenaya sababtay taa ilaahay asagaaba lehbo waman yattaqillaaha yajcal lahu maqrajan qofka kurba iyo wax walba oo qabto wuxuu leeyahay ilaahay hadduu aniga iga baqo oo dadaalo waxaan kaliya u samaynayaa maqraj maxaa waaye marka maqraj waxa weeyaan inuu micnaha ilaahay wax allaale wixii kaa maqnaayo oo ilaahay uu ku siinaayo haddana aayadda kale maxay tilmaamaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaah waquuluu qowlan shadiida markaad tiraahid qowl wanaagsan aad ku hadasho oo dadka u dhibriso u naxariisato oo kii ku caaya aad micnaha caayadiisii wanaag ugu bedasho ilaahay muxuu ku leeyahay yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waxaan hagaajinaa leeyahay acmaashaada dhaqankaada dhan aan toosinayaa wayakfir lakum haddana waa kuu dembi dhaafayaa dunuubtaada dhan haddana lagu dhaafayaa haye wayakfir lakum dunuub markaas waman yutic illaah ilaahay aa adeecdo faqad faaza fawzan cadiima maxaa lagu siinayaa liibaanta guusheeda iyo wanaageeda liibaan qof kasta meeli karaa marka waa maya marka waxaa liibaanuu leeyahay haddana aayaddii le ay sii fasiraysaa faman zuxzixa can النار وأدخل الجنة فقد فاز مركا فمن زحزح متك لغا فوغي نارت اي وأدخل الجنة جنة لغلي فقد فاز كاسا ليباناي مركا دلنيرد waxaan ugu naseexeynaya liibaantaas khayrkaas nimcadaas quruxdaas hortaalo marka inay ka faa'iideystaan taaba ugu naseexeynaya insha Allah ta'ala jazakallahu khayran kaasi wuxuu ahaa Anas Sheekh Cali Mu'min barnaamijkeeni dhalinyarada ee caawa aan la lahayn walaalkeen Sheekh Anas intaas ayuu ku egyahay intaan barnaamij la mid aan la ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.